حسن شيخ محمود قبورة قفته هويدي سو قبرها كلا بحين وهويدي قبرها كلا بحين مرة markan waxaa soo laba kaclaysay xiisadii maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ciidamo fara badan ayuu wuxuu ku soo bandhigay degmada Caabud Waaq ee gobolka Mudug waxaan kula wadaagi doonaa xogo faahfaahsan oo halkaas ka soo baxaya iyo sababta ka dambaysa in Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor madaxweynaha maamulka galmudug oo ciidamadan fara badan oo ku soo bandhigo oo markaasi degmada Caabud Waaq oo ka tirsan degmooyinka waa markaasi maamul goboleedka galmudug dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland tababaro ayuu ciidamo cusub oo kamid noqonaya kuwa maamulkaasi ayuu markaasi u soo xiray soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 14-ka bisha 6 Juun sanada 2026 haddii aynu ku bilowno xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa markan soo laba kaclaysay kadib markii Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor uu soo bandhigay ciidamo kala duwan oo markaasi beelaha ka soo jeeda degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ee gaar ahaan maamulka galmudug xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka iyo maamulka galmudug markan waxay u muuqataa mid soo laba kaclaysay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay soo gabagabaysay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kaasi oo loo magacaabay Axmed waa markaasi aadan madoobe inuu noqdo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhinaca maamulka Hirshabeelle dowladdu waxay soo gabagabaysay cutubyo waa markaasi ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaana arinteeda la isku fahmi waayay Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor dowladdu intaasi halkaasi ku mashquulsaneed waxa uu waday dadaalo kala duwan oo uga hortagayo dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo xilligan bal laga dareemayo deegaanada maamulka galmudug ciidamo beeleedyo hubeysan iyo kuwa fara badan ayaana maanta warbaahinta ka soo hormuuqday iyo dad careysan oo markaasi banaanbaxyo dhigaya kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda xiisada ka taagan maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo markaasi khilaaf weyn oo kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo markaasi kuwa dowladda dhexe federaalka ayaana xilligan waxa uu muuqdaa in markaasi ciidamo fara badan oo ku soo bandhigayo deegaanada uu ka taliyo ee maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ay dowladda khilaaf xooggan oo kala dhaxeeyo kaasi oo la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaana xilligan hub aruursi kala duwan wuxuu ka wadaa deegaanada maamulka galmudug muuqaaladan aad u jeedaan waa ciidamo beeleedyo hubeysan oo lagu soo bandhigay mid kamid waa markaasi waa deegaanada maamulka galmudug waa dad careysan oo banaanbaxyo dhigaya kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegeen in markaasi aan wax doorasho lagu qaban karin deegaanada maamulka galmudug sidoo kale waxay tilmaameen in markaasi cidii doorasho ku qabata dabcan maamulka galmudug ay markaasi ka shalay doonto dowladda federaalka Soomaaliya waxay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ku doonayso inay doorashada waa markaasi ay ka qabato maamulka galmudug taasi oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka qof iyo codka oo ay dowladdu ka hirgelinayso gobolada dalka maamulka galmudug oo ah maamulka salaxaad ee markaasi ama saddexaad ee dowladdu gacanta ku hayso xilligan cadaadis weyn ayaa uga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay soo ifbixeen khilaafyo u dhaxeeya hoggaanka ugu sareeya maamulka galmudug iyo kuwa markaasi dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalka ayuu dib uga laabtay waxa uu sheegay in xilligan ay markaasi dowladdu cadaadis saari doonto maamulka galmudug taasi oo sidii markaasi loo wajihi lahaa xiisada ka taagan maamulka galmudug ama markaasi looga shaqeyn lahaa waa khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug dhawaan ayay dowladdu markay qorshaysay wafdi hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda hay'adda qaranka Mahad Maxamed Salaado kuwaas oo ku wajahna maamulka galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda maamulka galmudug balse kulankaasi waxaa baajiyay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo markaasi dagaal xooggan ka dhigay magaalada caasimadda Muqdisho dhinaca kalena hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ciidamo tababar soo xiray kuwaas oo kamid noqonaya kuwa maamulka Jubbaland waxaana Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ciidamadan kula dardaarmay inay markaasi dardar galiyaan howlaha hor yaalo sidii markaasi uga shaqeyn lahaayeen arrimaha ku aadan in markaasi dowlad goboleedka Jubbaland ay noqoto mid ka caagan dhinac walbana waxaana ciidamadan kula dardaarmay in markaasi si weyn ay uga shaqeeyaan
arrimaha amniga ee maamulka galmudug haddaba waxyaabaha ka soo kordha xiisada maamulka galmudug halkan ayaa si joogta uga daawan doontaan